waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane maxamed cali maxamed faarax 20 jir ah ina farxiyo cabdi mursal ku dhashay Kismaayo kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay urur hubeysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis gaar ahaan kooxda daacishta Soomaaliya sidoo kale eedaysanaha waxa si gaar ah loogu eedeeyay in uu dil bareer ah u geystay marxuum kormeero saddexaad maxamuud cabdi dhuxulow oo ka tirsanaa ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 8aad 2019 dilkaas oo ka dhacay suuqa Siinaay degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho ciidamada amniguna ay qabteen dilka kadib eedaysanaha oo ku hubeysan bastoolad Belgium ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed cali maxamed faarax oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda daacish oo uu kaga biiray buuraleyda goolis ee magaalada Boosaaso gobolka Bari isagoo qayb ka ahaa jabhadda daacish ee ka dagaalanta Miraale kadibna ay kooxda daacish u soo bedeleen qayb dilalka qorsheysan ka fulisa magaalada Muqdisho eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa fulinta 2 dil oo qorsheysan dilka koowaad waxaa fuliyay horjoogihiisa Xuseen wuxuuna u ahaa hab lagu baraayay sida dil qorsheysan loo fuliyo waxaana target ahaa askari ay ku dileen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho dilka labaadne waxa wada fuliyay eedaysanaha iyo horjoogihiisa iyagoo dilay marxuum maxamuud cabdi dhuxulow ciidamada amniguna ay qabteen eedaysanaha oo ku hubeysan bastoolad Belgium ah markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ku sugan xilli subax ah rugta booliiska suuqa Siinaay ee degmada warta nabadda ay maqleen rasaas ka dhacday meel u dhow oo dhanka suuqa ah markii ay ku baxeen ay arkeen xabadaha oo ku dhacay marxuum maxamuud cabdi dhuxulow kadibna ay ceyrsadeen raggii dilka geystay sidaasna ay ku qabteen eedaysane maxamed cali maxamed faarax oo ku hubeysnaa bastooladii uu dilka ku fuliyay markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyada ay ka mid yihiin cadeynta iyo qiraalka laga qoro eedaysane maxamed cali maxamed faarax 2 sawirka iyo qoraalka isbitaalka oo cadeynaya dhimashada marxuum maxamuud cabdi dhuxulow 3 bastoolad Belgium ah oo uu ku hubeysnaa eedaysanaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeraalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile daacish maxamed cali maxamed faarax uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamuud cabdi dhuxulow dawiil cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida